qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay waxaan markan idiin soo gudbinaynaa waraysi aan la yeelanay jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo hadda ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee puntland sanadka soo socda ee 2019 su-aashii ugu horreysay aan weydiiyana waxay ahayd bal aragtidiisa ku aadan hadalkii dhowaan madaxweynaha puntland cabdiweli gaas uu ka sheegay magaalada dubai kaasi oo ahaa in soomaaliya aanay muqdisho ahayn muqdishona aysan soomaaliya ahayn wallahi horta waxa weeye horta dowladda soomaaliyeed waa jirta dowladda federaalku waa dowladda dhexe ee ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa dowlad xuni waxay dhaantaa dowlad la-aan dowladda maamulkeeda jira waxa weeye waa inay ku xiraadaan dowladda dhexe dowladda dhexe marka hadalkaas haddaad weydiisay puntland ka soo yeeray madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas waxaan is leeyahay waxa weeye taas waxay ku imaaneysaa waa la tashi la-aan dowladda dhexe wax kasta oo tallaabo kasta oo maamul jira uu qaadayana waxa weeye dowladda dhexe inay talo ku leedahay waayo dowladda dhexe iyada mas-uul ka ah maamulada oo dhan in marka wixii qorshaa ee maamulada u baahan yihiin inay dowladda dhexe soo marsiyaan oo ay kala tashadaan horta nidaamka dowliga ah waa asaas masalan imaaraadku waa 7 imaaraad 7 imaaraad oo jira waxaa laga xukumaa abudabi waxaana xukuma waxa weeye waa shiikha jooga abudabi marka innaga hadda federaal baan noqonay federaalka dastuurka lagu qoray macnaheedu ma aha in qof walbaaba maamul kastaaba in dhinaciisa wax u jiito ma waxa weeye haddii la yidhi muqdisho waa caasimadii dowladdii dhexaana fadhida marka muqdisho hadday mar caasimadii tahay dowladdii dhexaana fadhido waxa weeye waa meesha looga taliyo dalka looga taliyo halkaas waxaa ka muuqata inaysan maamuladu wax badan ka fahansaneen nidaamka dowliga ah iyo sida maamulku yahay iyo sistamka la rabo in loo maro markii la rabo in qorshe wax looga qabto dalka maamulkaadu mas-uul ka tahay masalan maamulkaasu hadduu qorshihiisa la yimaado xiriir ha sameeyo laakiin xiriirkaasu waa og tahay dowladda dhexe dowladda dhexe inay talo ka bixisaa waayo wasaaradda qorsheynta jirta ee dowladda federaalka wasaaradda qorsheynta waxaa jira wasaaradda arrimaha dibadda waxaasoo dhan waxa weeye waa kuwa wixii arrimo dibad ku saabsan waa nimanka xiriiriya u ah waa nimanka muxuu ahaa sahli kara ama u samayn kara tashiilaad inay waxay doonayaan iyo qorshaha ay doonayaan oo rabaa in dadka ku dhaqan ee soomaaliyeed ee maamulada kala duwan ku dhaqan puntland kaliya maaha inay iyagu qorshahaas wax ka qabtaan waxaa laga rabaa waa dowladda dhexe marka anigu hadalkaas runtii waxaan is leeyahay waa hadal ku ah gab ku ah dowladda dhexe ku ah waxaana leeyahay waxa weye dowladda dhexe iyaduna inay u dabacsanaato wax ka qabadka iyo dabacsanaanta wax ka qabadka maamulada inay u dabacsanaato inay ka warqabto inay la socdaan inay baahida jirta ay wax kala qabtaan anigu intaasaan qabaa fikriyan inay arrintu ku salaysan tahay waddanka waxaa ka jirta dowlad uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaarena uu ka yahay xasan cali khayre muddo sanad iyo dhowr bilood ayayna shaqaynayaan hanaanka ay ku maamulayaan dalka sideed u aragtaa run ahaantii dowladdu horta waxaa la dhisay waa sanad iyo xoogaa waxay jirtaa hore waxaan hadalkayga ku jirtay dowlad la-aan dowlad xum waxay dhaantaa dowlad la-aan run ahaantii waxaa weeye dowladdu ilaa hadda dhaliila waa yeelan kartaa waxaa le ilaahay un baan gafin laakiin qofka bini aadanka waa gafaa dowladda dhexe waxaa weeye wax badan dadku waa ka tirsanayaan oo waa maqleen dadka ka tirsanayaan dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay iyada qorshaha iyo howlaha ilaa dowladda dhexe weeye dhaliila waa yeelan kartaa laakiin ilaa hadda waxna waa qabatay dowladdu oo runtii lama ankiri karo waxay qabteen iyo waxay tallaabada qaar lama ankiri karo dhaliilana waa jiraan dadku uu sheeganaya waxaan dowladda dhexe leeyahay waxaa habboon inay hore u socoto inay waxyaalaha khaladaadka masalan hadda waxaa jiray baarlamaanka isqabsaday muddo
maantana la dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka taas waxay keenaysaa lafteedu dhibaato dowladda ku keenaysaa waa hay-adii sharci dejinta ama sharcigaa wey dowladda hay-ad dhan baa ka maqan markay dhibaato u timid taasu markaa dibudhac way keenaysaa waxaan leeyahay inaan loo baahnayn isqaqabsi inaan loo baahnayn baarka muxuu khilaafaad siyaasadeed in loo adeego ummadda soomaaliyeed danteeda loo adeego ayaa muhiima madaxweynuhuna waa madaxweyne dalka maxamed cabdilaahi farmaajo prime ministerku waa khayre systemkii dowladda waa dhisan yahay laakiin waxyaalaha hoose oo jira daano xoogaal uma ahi laakiin dadka cabashadooda waxay ka cabanayaan in la toosiyo aan isleeyahay ayaa loo baahan yahay dowladda dhexena la taageero oo la ayido oo gacan la siiyo garab la siiyo la garab istaago waayo shacabka haduusan garab istaagin oo qof walba uusan dowladdiisa garab istaagin oo dhaliil kale la soo istaago haddee dowladda hore uma socon karto marka waxaan leeyahay dowladda horsocod waxay ku xiran tahay taageerada shacabka ku xiran tahay webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa ku fitahay deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya haba ugu darnaato ee magaalada Beledweyne oo inta badan ay fatahaadu saameysay gurmad degdeg ayaana lagu baaqaya arinta maxad ka leedahay la soconaba waxa weeye nimcada eebbe horta yaa keentay fatahaad waa nimco eebbe roob badan baa day webigaa soo fatahay webigaa Shabeelle run ahaantii waxa weeye dad badan baa ku barakacay waxaa la oran karaa boqolkiiba 90 maanta bannaankay taagan Beledweyne dadkii ku noolaa biyuhuna waxay gaareen ilaa 2 mitir bay qofka u gaarayaan ama 1 mitir iyo bar bay maanta gaareen dhibaatadaas runtii waxaa sabab u ah anigu shakhsiyan webiga waagi horta webiga markuu guro waa la qodi jiray hadda waxaa moodaa webiga ciidina buuxisay ciiddaa buuxisana inay sababtay biyuhu markay soo bataan in webigu fato waxaa taas loo baahan yahay hadda wax ka dambeeya in laga tashado in webigaasha la qodo oo dadka wax ka qaban lahaa loo yeero oo webiga la qodo ciidda laga saaro si biyuhu ay ugu nagaadaan webiga dhexdiisa taas marka maanta ka dhacday runtii waa arrin aad iyo aad dadka shacabka ee Beledweyne waxaan leenahay waxaan u baaqayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaan ugu baaqayaa say horeba ugu geysteen taageero qaraxii Zoobe ka dhacay say ugu geysteen abaarihii koonfurta ka dhacay waxaan reer Puntland ugu baaqayaa hadday leeyihiin ganacsato hadday leeyihiin culamaauddiin hadday leeyihiin ururo bulsho in maanta loo gurmado gobolka Hiiraan oo la garab istaago oo garab istaagso noqdo sidii ummadda Soomaaliya loo badbaadin lahaa gacanna loo siin lahaa ayaa loo baahan yahay marka waxaan ugu baaqayaa Puntland iyo ummadda Soomaaliya iyo maamulada kale dhammaantoodba in dad garab la siiyo shacabkaas ku dhibaatoobay fatahaadii ka dhacday gobolka Hiiraan